السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الأمان reer dabiib reer dadaal see tihiin ma fiican tihiin ma nabad qabtiin ilaahay idankiisa waa idin rajaynaa khayr badan iyo farxad meel walbood adduunka ka joogtaan iyo soo dhawaada si guud iyo si gaara welcome idin leeyahay waa dhiirigelin kale waa maamawaano iyo mar kale waxaan joognaa dabiib iyo dadaal qolalka hoosena waxaan joognaa maasha allah qolka daryeelka xaajimo oo canjeero xilligaagiyaa la gaaray ya maasha allah soo dhawaada welcome mararka qaar waxaa dhacdo in arrimaha qoyska ay u xaniban yihiin xaajimacow haddana lama ogo oo ilaahay baan wax naga oge taaniyaan ka badin weyne waad aragteen inta kun oo program ama daryeel ama nafaqo ama advice ama dhiirigelin annagana qusayso xaajimacow marka dhaxduu ka baxay mararka qaar way jirtaa inay reerka si sinaana isku wada baaraan xaajimacowna la dhaho waxaaga xoogaa waa yara daciif laakiin inta badan ayaga waa laga qaleeya waxaa la dhahaa no problem xaajimacow wixiisa daciif waa IVF isku shuba so reerkii IVF ay noqotay in la aado IVF-ka haddii la aado ayaga waxaa inta badan loo yiraa IVF aad kolley qofkii dhaqaale haysta waxba kuma aha ilaahay hadduu dawo ugu darane waa lagu dhalaa waa runtood ayaga waxay haystaan million oo spamsa haddii IVF ay xaajimacow soo bursato arrinku aada u liitaa haddii daryeelka xaggiisa la aadana xag rabbi lagama quustee xaajimacow within sanad waa laga yaabaa inuu kasoo kabto marka allaha la garab galo xaajimacoyaasha dhib kalaa lagala kulmaa inta badan dhibkaasoo ah inaan easy cunto soomaali looga dhex saari karin waqti badan inuu shaqo ku maqan yahay qaarkood laga yaababa shaqo maalmo ama weegag lagu maqnaanaa amaba meel kaleba ay ku nool yihiin inuu xaalku yahay so xaajimacow soo rawaxo ama qada quraacasho gurigiisa ka cuno waa yaryahay dhibkaas waa lagu qabaa dhibka kaloo lagu qabo waxay tahay lama fahansii karo isla tacaalka ragga iyo dumarka ka tegista daryeelka ama ka tegista waxay yaqaaneen dumarkaa roon waxa u nugleeyana mar walba annagaa jika ka agdhow annagaa ka sheeko badan ka waraysi badan ka information raadin badan waxaa laga yaabaa 1 milyan oo nin inaynaba ku soo dhicin caafimaadka fertilityga soobaar waxaana u howl fududeeya waxaa ka mid ah ayaga wax laga fisho bil walba ma leh caadana lagama fisho ugxaameyna lagama fisho raximna ma sidaan hadhowna ilmo calool kuma qaadayaan marka dhiirigelinta si fiican u dhageysta sidoo kalena ma hadal badna ragga hadday hadlaan xataa waxay ka hadlaan adduunyada kale maanta haddii la yidhaha banooni ha laga sheekeeyo political ha laga sheekeeyo qabiil ha laga sheekeeyo adig wax kastoo waraysi ah rag qaybaha ay ka hadlaan falanqaynta idaacadda oo kale waxaa laga yaabaa inay xiiqaan sida maqaayadaha markay fadhiyaan oo kale iyo wixii lamid iyo meelaha gatherinka ragga iskugu yimaadaan ama technologygan la gaaray qolalka laga hadlo TikTok oo kale hadalkaba inay iska sugan waayaan laakiin markay noqoto caafimaadkooda qaas ahaan fertilitygooda no they don't talk about that midda kale ninka ragga oo tarankiisa lagu dhago inta badan way ka qaracan badan yihiin dumarka because ma aha dad oo they know how to express themselves ma qalbi nafisi karaan meesha gabadhu ay ka sheekeyn karto saasay waxay ayaga ma dhihi karaan haddana dad badan oo lagu dhahona ma jirto dhakhtar qarash sii xilli ballanso la lahow shir ama consultation kala sheekaysa danahaaga isxisaabi oo danahaagii caafimaadkaagii dareemahaagii
siduu xaalku yahay uga hadal ma samayn karaan, way ku adag tahay. waxay aaminsan yihiin dhakhtar waxaa loo tagaa markaad soo dhacdo. qofku markuu cillad adag qabsato ama dareen lahayn ama xiniin bararto, cillado adag adigoo hamada ka yaraato, ka alla magan. laakiin marka arrin aad u cadiban yimaado, dhakhtar u tag. dhakhtarkiina dawadii caadiga ahayd ee nafaqeynta ahayd ma ka hadlayo. qalliin iyo laba xidida isku kaa dhagan aan u malaynaynaa iyo taastiye iyo ma naqaana wax kaa qaldan iyo moo qaraacan moo distress. sometimes qalliimo aadan filanayn oo si private lacagteeda loo bixinaa kumanaana ayaa soo geli karta qadka. laga yaabee inta aad xal raadinaysa inay kaaga sii darto. laga yaabee in lagu yiraahdo sorry wax cararayaalaba malihid. ayagoon ragga la fahansiin karin nin walba wuxuu cuno ciidamiya baa laga yaabaa ninka ragga inuu qaraacan qodo dhaco. mararka qaarkood waxaa jirto in gabdhaha aan la shaqeeyay qaarkood ay ku dhacday. waxaa jimacoo dhahay haddii aniga aan saa u liito fasaxaa iga tahay. inaan dhalo way igu adag tahay. dhaqaatiirtii baa dhaheen wax cararayaalaba kuguma jiraan ama wax isboomaaba malihid oo caafimaad leh. gabar ayaan kula gooynin, iyadana ay leedahay aan kula tacaalo, aan kula dadaalo, ilaahay aan barino, insha allahu khayr. mustaqbalka sha'ni soo socda waaye, ma garan karno waxa mustaqbalka inoo haayo. ilaahay baa waxaaye aan dadaalno. marka qof dhinac isku buusaa, hadal aan fahansii karin, adduunkii aan afqalaad wax ku aqrinayn, nafaqo inuu gato aanan la fahansii karin, wixii qarash tahay, waqti tahay, nasasho tahay, raaxo tahay, isku roonnimo tahay, isbeddel tahay. de laga yaabay dadka qaarkood inay dantu baddo inay kala tagaan. waayo qofkii waa inuu juhdi badan naftiisa geliyo, ilaahay baryo, ilaahay aamino, dheefta gato, aqriyo, u xisho, isticmaalo, aqbalo dhadhankeeda, aqbalo qarashkeeda, aqbalo wadwadkeeda iyo laasinkeeda. tan ilaa ay cirib wixii loo baahan yahay layska bedelo. kab iyo karin wixii loo baahan yahay la gato, haddana la aqbalo oo laga dhigto the new lifestyle. mad hal maraa dhadhamina caawihee. sanad 2 3 wad baaris kala samee, isbedelka u fiirso. maxaa isbedelay? ma ka kabata damagekii? weli ma qalalan tahay oo qaabkii caafimaadka weli ma isbedelin miya? waa ha socoto. marka danta waxaa lagu gaaraa ilaahay idankiisa insha allah daryeelka. maxay tiri Soomaali? qof walba wuxuu cuno ciidamiya. taas waa idin leeyahay jimco afaariisa waa ka fogaadaa, laakiin intiina maasha allah aan la shaqeeyo fiiri intaa soo jiitamayni. barnaamijkan waxaan u diyaariyay Team Blue Diamond inaan idinkugu sii laba saafo la tacaalka xaajigaagana. waxaa adiga kuu roon marbe asigana u roon tahay. waxaa asiga u roon ilaahay idankiisa insha allah marbe adigana kuu roon tahay. soo ku talagal gabrey, xaajigaaga hadduu dhaga adkaado oo wax ragga dhan ay ka siman yihiin, hadduu nafaqada ka rooro way ka siman yihiin. way jirtaa cashirka caawana waa ka arki kartiin adduunyo la hormaray oo ninka ragga raba daryeelo tin ilaa ay cirib farxadiisii, quruxdiisii, hanaankiisii, caafimaadkiisa qayb ka qaadanayso. haddii la yiraahdo fertilitygiisana loo bartay daryeelada caawiyo, hadhowna uu cunayo cabaayo. maxaana la yiri haddaad daryeel haysatid dhakhtar uma baahnid. qof walba wuxuu cuno ilaahay idankiisa insha allah ciidamiya. marka waa iga dhiirigelin saanaan kuu fahansiinayo iyo kasii fiican. ilaa aduu ku yaqaanaa, adaa la nool, aduu ku qabaa, adaa ilaahay wax isuu keena daray u sheeg. laakiin dhaqanka ah maxaan dhakhtar uga baahanahay, ma anaa xanuunsan, maxaan nafaqo uga baahanahay, ma anaa xanuunsan. ilaahu wax ma oge ha cadaabinay tiri Soomaali. baarista waa hubsiino halaala siistaa. mar walba waxaa soo baxo gabar walaala oo dhiirigelinta dhageysatay oo tiri aan iska soo fiirino wixii baxaa ha baxaan qarashe, aan iska soo fiirino. meesha markii la tagay in la yiri hakadka waxaa idinkugu wacan meesha isbama caafimaad laba ma yaalaan. kow marka ama IVF aada ama iska daaya. taased waxaa idiin tala adikaa qoys adikaa taqaaniin.
oo maba dareemin inay wax iga qaldan yihiin ee ma dareemi kartid shahawaadkaaga oo naaqusa ama damage ma dareemi kartid marka xidid xanuunsado ama xaniin xanuunsato la dareemaa sama ama dareenku kaa tago ama kaa yaraado laakiin adiga nin ragoo caado laga sugayo ma tihid caado ma kugu dhacdo gabadha marka waxay inta badan la soo cabaadaa caadadaa ku joogsato dareenkaa ka yaraado qoyaankaa ka yaraado uurqaadistaa ku adkaato uur sidistaa ku adkaato tacabka markuu adkaado da-dan hadda waad ogtiin anagu time aan haysanaa kala cararaa yimaado taas waayo dumarka xal u raadiyaan dhaqsi raggana aan lagu fahmi karinba sometimes xataa raggu ma rabaan inay ogaadaan inay wax ka qaldan yihiin because waxay diidaan dumarka dee ilaahay baa kala siiyey aqoon dumarka qaaraa waxaa jirto xaajiga hadday wax daciif ka yihiin inay buuq furaan because iyada naftirkeeda lama barin raggu dabiibku waa u sahlan tahay nafaqa basaa ka xigto ilaahay idankiisa ilaa asagu rixim ma wado riximkaa howlo badan ama cilado keena ama burooyin keena ama dhiigga diido inuu soo daayo ama ugxaanta inuu koriyo diido ama hormoonka qaldo riximku waa cajaa'ib marka asiga riximba ma haaye hormoonkiisa easyaa lagu sixi karaa sometimes waxaa dhacdo nin 25 sano ama 30 sano ka hor ilmo loo dhalay ugu dambeysay baa laga yaabaa inuu gabar cusub guursado waa oday weyn hadda odaga 70 koo laaclaacay amaba dhaafe gabadhii marka waa gabar dhaqmayso taas waa nimanku inta badan gabar yar uga daba ordaan because waxay isleeyahay armaa ilaahay ilmo kala kaasiya soo gabadhii weli dhiigaa ku dhacay da-day rabtaba ha jirtee yaraana loogu xishay inay weli dhaqmaad leedahay gabadhii waaba walac xaajiga intii la koolina arooska ahay qudaarta cun iyada ha ku soo celin waxay karida xaajiyada ama waxay ku cuntay ku keentay hadiidin ya salarka yar cun malaaga yar cun heblowga cun malabka yar caanaha yar odagii bug waaba loo qaado uur taas waa loo yiri nin naagtiisa ma dhimato any woman he can father her kids so amurta khayr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhamaan dabcan anaguna ilaahay kama quusanayno ayagana dabcan waa ku muhiim inayna ilaahay ka quusan laakiin fahansiintii ayagana lagu dhibay dhaqtarayntii lagu dhibay akhriskiyaa lagu dhibay isku xilashadiyaa lagu dhibay meesha gabdhaha badidooda maanta 5 qaaradood dhoobadeena meel laga wada qaaday oo aan raadinayno mid dhifa maahane xal ayaga haddii xataa qurbaha joogaan maahane hadduu xataa jaamici yahay laguma kara waxaana ku roona cun qaatir billah shaaxaas yarka oo dhaka jabiye ah wixii uu cuni jiray wax ka badan hadduu cuno waxaa laga yaabaa inuu qada inuu isku arko mid dhifaho xoogaa yar iska reer magaalaho maaragtay isku rooroonaho fahmi karo da casriga adduunka la jaan qaaday maahane inta badan hay bedelin waa been waay ka bax yaa lagaa dhaadhicin war waaba kana aqri war waxaan wuu kuu roon yahay war ragga u roon yahay luuqadda ma taqaanid miyaa nin iyo qof dumara ma kala taqaanid miyaa waxaan maan oo u roon yahay annakoo noo roon yahay tarankeenu u roon yahay fertilityga u roon yahay quruxdaada u roon yahay tabartaada u roon yahay iga dhaaf ma rabi waxaas yaa lagaa soo dhaadhicin kiintaal qaylaha meel la taagan yahay waana u baahan yahay markuu soo dhul dhaco yaas okay qaraar waa kaa cunaa waayo waxaa la yidhi beersabagaa qaaday dhiig karaa qaaday dhiig macaanaa qaaday wixii da maaragtay wax tabaraba meesha ma jiraan maxaa talaa naf markii u geydo baa laga yaabaa dadka inta farakutiriska isku roonka lama sheego dadka badidoodaa la sheegaa badidooda majoritiga dadka marka gabar walba xaajigeeda dhaga adag yahay u sabaraan ku dhihi lahaa ha ka sii waalin adigana buuq ha ku furin ha ku digdiganin ha la yaabin ha ku diimin waayo qofka markaa ku diintid aday kugu soo rogmaan dhaga adeegii iyo isku quuris la-aantii iyo confusekii siduu asiga ugu dhiban yahay halkana u rabo baa laga yaabaa inaa adiga noqoto markaa ha ku diimin insha allah wixii u roon marka lagu soo geliyo tartiibtaada isla samaysta insha allah marka adeega saasu fahansii aadhikoolka fahansii shay walba aadhikoolkiisa aqriya wixii la cunaa la ciidamiya hadalka oo dhimri haddaad doonto xataa adiga wad nafaqada asiga he will join you later weligaa ma aragti qofaa tira kaale wax cun may hadhow waa cunaa
kaala hadda la baxa waa kaa daba imaana dadka qaarkood waa they will follow you but they can't do it now markay arkaan adoo qurux badan iyo adoo daadaxa iyo adoo isbedela iyo adoo actifa iyo adoo habiya iyo adigoo change life ka sameeyey then markaasay ku leeyihin walle waxa meesha ka jira waa run let me do it too marka hore haddaad tiraa let's do it together khilaafaa imaan karo maya adaa lagugu baroobeynaa marka adaa wax aqri kara maano adaa lacagtii la taagan adaa nafaqadii gadanayo adaa sameynayo adaa qiyaasayo adaa qaadadaana kuu roon haddii lagu yiraahdo diyaare koobkaana kuu roon diyaar dhirtaana kuu roon diyaar halkaasay kasoo gashaa fertilitigaaga caafimaadkaaga waa nafaqo adaa wixii dhanba u baahan oo igu shubtaas taagan sooma let him join you later adiga ku sii soco markuu arka laakiin ilaahay idinkiisa adoo iswada bedelay oo daadaxa meel walba ay gadaal anti aging u sameynayso xagga tarankana qurux ka ah laga yaabo inuu soo xisho yiraa haye anigana aawo qolkeygii hay waa kana qolkaagii wixii ku jiro adigaa iskale haye waaye noowad aqri markaad tiraadid hadduu aqrinaayo ku nasanayo fahmi karaayo alxamdulilah daas waa idiin dhahaa haddaa haysata xaajimaco maasha allah asigiiba xal raadinayo please say alxamdulilah because dadka ma wada haystaan dadka qaar waxaa ilaahay wax ugu daray maanta haddii layidhaha waxaana kuu roon oo hadda ka horaanba tan waa midaaba haysanay oo wixii hore caawe oo waxaa maxaa waay badan waxaan tirada badan buuq inuu keenaaba jirtaba intuu dhihi lahaa haye adduunkan sii dhexgalnay wax ka fiican wax walba wixii kasii fiican ilaahu noo sahal ilaahu daawo ku dar intuu sii ordi lahaa oo keep going sameyn lahaa wuxuuba taagan yahay wixii horaaba buuxiyey wixii horaaba noo yaalee wixii horaabaan wadnaaye hore ma u soco karo marka say alxamdulilah insha allahu khayr soo dhawaada welcome fadlan hadalka saa u dhehaysidna tartiib ka dhig si yaroo degan oo macaan oo macquula oo la fahmi karo ugu kala jejebi soomaalida dadka qaar markay ka yaabto waxay tiraahdaa damiinka far waaweyn wax loogu dhigaa haddaa dhulka isla dhacdo waxaaba laga yaabaa inuu yiraahdo noloshaan maba lagu jiri karaba too much shas inay ku noqoto adigana maxay kaa tahay dadaal horay danta ha loo gaaro qaas ahaan aniga markaa idin leeyahay da-ayda ku socoto gabdho da-da ka ogaado naftirkeeda waa iga qaadateen laakiin adiga the way you're dealing with your own family ma aqaani maybe your family waxa uu la dagaalamaysaa si oo xoog ah wax u rabtid please xoog ha waxba ku raadin insha allah khayr soo dhawaada welcome waa inoo dhiirigelinta kale qolka xaajiga ku soo dhawaada amuurtana khayr allah ka dhigo aamiin soo dhawaada caafimaad allah idinkugu daro daryeelka soo dhawaada welcome insha allah intiina youtube joogto ee rabta inay ila soo xiriirto nambarada hortiina yaala igala soo xiriira fartiina lagu reebaa xilli kasta active ma ahi fartiintaasoo salaan leh oo barasho leh qaas ahaan dadka raba inay ballanta dhigtaan basaan la hadlaa dadkaan ballanta dhiganaynin fadlan youtube-ka dhiirigelinta ka dhagaysta intiina programka activeka ku ah youtube-kan activeka ka ah qolalka iyo nafaqada iyo dhiirigelinta la socda intiina youtube-ka joogto ee ka adeegan karto amazon ee programka rabto ee nafaqada inay barata rabto isla tacaalka uu ka go-an yahay insha allah fartiin reeba ii sheega inaad aalada ka adeegataan amazonka ka adeegata kole adaa garana amazon dunida daafaheeda dhan uu tegay ilaa africa wuu tegay laakiin yaa ka adeegta waaye haddaa yurub joogtid way kuu sahlan tahay australia america canada meelo badan oo kuu sahlan tahay laakiin yaa waaye qofka ka adeegto dabiibi dadaal nafaqada laga bartaa si loo doonto oo loo cuno oo loo cabo dawadana ilaahay baa haayo dadaalku ma reebno saaxiibtinimo wanaagsan waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo caafimaad allah keeno dhiigga iyo dhimirka nabad ku raaco fadlan ha iga xumaanin haddii aanan fartiintaada wax ka fahmin oo masajkaaga aan meesha ku dhaafo saa idii sheegayba salaan barasho iyo akhbaarta inaa ii sheegtid ama adiga naftaada haddaad daryeelka u rabtid ama haddaa xaas tahay ood xaajigaaga u rabtid ama haddaa labadiina rabtiinba fadlan programku waa loo sabraa far kaligeed fool ma dhaqdo dadka sabri karo salaanta wacan diyaar ah nafaqada gadan karo aalada ka adeegan karo unbaan aniguna la shaqayn karaa degdeg iyo dood iyo muran iyo orod iyo hadda ila hadal iyo wax daldaliid iyo dadkaas ma ka go-no programka dadkaasna programka ma anfaco programka waxaa iskugu soo haray
inta isku roonta ah ilaahayna dawaha keeno dhiigga iyo dhimirka nabad ku raacdo ama caafimaad allah ha keeno saaxiibtinimo wanaagsan insha allah waa whatsapp waxaa fartiinta ku reebaysaan insha allahu khayr salaamu calaykum